lugaha loogu maamulo gaariga. waxaa jira 3 badeel ama cagasaar oo gaariga ku yaala, waxaana saddexdaasi loo yaqaanaa accelerator oo ah sheelaraha, brake iyo clutch oo ah farsiyoonaha. sheelaraha ama xawle kordhiyaha waxaa sidiisaba loo adeegsadaa lugta midig, waxayna shaqadiisu ay tahay in gaariga xawligiisa uu kordhiyo ama uu nusqaamiyo, waxaana lugahaga ugu qaadaysaa si degan. bareega lugta waxaa isagana loo adeegsadaa lugta midig, waxayna shaqadiisu tahay in gaariga xawligiisa uu yareeyo ama inuu gaariga hakad geliyo. wuxuuna bareega qabtaa 4 lugood ee gaariga. markaad bareega lugta saarto, gaariga leerarkiisa dambe way ay soo shidmayaan, waxayna gawaarida ka dambeeya ku wargelinaysaa arrintaasi in xawliga ay yareeyaan, isla markaana aad doonayso inaad istaagto ama wax kale oo halis ah ay jiraan. markii aad bareega hawshiisa dhamaysatana, si degan lugaha ugu qaad oo aayar ah. waxaa sharci ah in labada badeel ama cagasaar loo adeegsado lugta midig oo keliya, adigoo lugtaada ciribteeda dhigaya halka dhexe ee gaariga kuna hagaya labadaasi badeel. farsiyoonaha wuxuu ku yaalaa sidiisaba dhanka bidix, waxaana lagaa doonayaa in lugtaada bidix aad u adeegsato isticmaalkiisa. waxaadna halka hoose ugu riixaysaa lugtaada si degan oo aayar ah, kadibna lugtaada aad ugu qaado si degan oo macaan. markaad farsiyoonaha gaariga hoos u riixayso, waxaad hakad gelinaysaa matoorka gaariga iyo wareegga lugaha. markaad ka kacdana, waxaa dib u wada shaqayn doona lugaha gaariga iyo matoorka. wuxuuna farsiyoonaha shaqeeyaa haddii gaariga la kiciyo oo keliya iyo in marshada la geliyo. haddii aad lugtaada kala soo booddo farsiyoonaha gaariga, sidaasi ayuu gaariga u boodboodayaa. haddii aad farsiyoonaha isticmaalayn, fadlan lugahaaga halka hoose dhig. weliga ha ku kaxaynin gaariga ayadoo lugtaada ay saaran tahay farsiyoonaha, waxay keeni kartaa dhibaato xagga makaanikada ah iyo mid ku timaada noloshaada oo ah shil. sida gaariga loo galo si nabadgelyo ah. inta aadan gelin gaariga, waa inaad iska hubisaa waddada nabadgelyadeeda, kadibna gadaashaada iyo hortaada fiiri inta aadan gaariga furin. marka aad soo gashana, iska hubi in gaariga bareegiisa gacanta ah uu ku jiro sidan oo kale. ka degidda gaariga si nabadgelyo ah. waxaa muhiim ah inaad iska hubiso nabadgelyada waddada inta aadan ka soo bixin gaariga. fiiri muraayadaha soo xiga xaggaaga, waa intaasoo aad wax ka aragtaa, isla markaana fiiri dhanka garabkaaga midig inta aadan gaariga xirin. shilka gaariga ama afka hore gaariga. markaad baabuurka gasho, waa in aad saxdaa fadhiga gaariga iyo haadadka muraayadaha gaariga. haddii aad ahayd qofkii horey u waday iyo haddii kaleba, waa inaad iska saxdaa kursiga aad ku fadhido si muuqaalka hore uu kuugu fiicnaado, iyo inaad soo ceshato dhabarka dambe ee kursiga. albaabada. iska hubi dhammaan albaabada gaariga si fiican inay u xiran yihiin. isticmaal muraayadaha gaariga si ay kuu caawiyaan, waxayna u muuqaal eg yihiin muraayadaha sidan oo kale. ama waxaa gaariga ka soo muuqanaya hadduu albaabka si fiican u xirnayn, calaamadan oo kale. fadhiga gaariga. kursiga aad ku fadhiisanayso hore u soo dhaqaaji si lugahaaga ay u gaaraan badeelka ama cagasaarayaasha saddexda ah. lugtaada bidixna waa inay taallaa dhulka hoose ama sagaxadda gaariga sidaani oo kale. haddii fadhiga kursiga uu kaa gaaban yahay, kor u soo qaad si aad u hesho muuqaal fiican, kadibna iska hubi fadhigaaga xagga dhabarka ah inuu saxan yahay. kadibna gacmahaaga sidaasi ugu wareeji isteerinka si aad isaga hubiso in aadan ciriiri ku jirin. waxaana sidaasi oo kale sixi kartaa isteerinka gaariga fadhigiisa sidaani oo kale.
ugu dambayntii waa inaad saxdaa halka aad madaxaaga saarayso adiga oo dhagahaaga ka cabiraya.